بسم الله الرحمن الرحيم maantay waxaan ka wada hadlaynaa aragti ku saabsan sida maaragtay macdanta iyo kheyraadka dhulka looga faa'iideysto waxaan horey u soo sharaxay oo u soo dhigay 100 video ku dhawaad macdanta ka hadlaya waxyaalaha aan uga hadlayay waxay ahayd waaqica Soomaaliyeed ee macdanta quseeya inaan wuxuun ku soo kordhiyo intii aqoontaydu tahay in ka mid ah muddo badan oo aan soo waday feedbackyo badan baan helay aad baan uga mahadcelinayaa dadka dadaalada badan sameeyay marka haddii aan halkaa qaybta kaga imaado hadda waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed ee aan ka tirsanahay dhammaan kheyraadka dhulka waxaa horey u jirtay waxaa horey horta si waadax ah suuq u helay dahabka asagu wuxuu helay suuq aan marra muran ku jirin waadaxa marka waxaa iyaduna si waadaxa aan rabnaa inay iibu helaan macdano badan oo qaar hadeertaan la iibsado walow suuqoodu uusan ahayn si waadaxa oo magaalooyinka waaweyn qaar ka mid kaliya waa uu suuqoodu ka jiro iyadoo meelo tirsan ay iibkaas fududeeyaan iyo qaar badan oo caalamka la iibsado oo aan weli hadda wax loo helin ma garanaysaa hadda suuqa aan weli loo helin marka waxaan hadda ka fikirayaa sidii aan ugu heli lahayn iib macdanaha raqiiska ah oo Soomaaliya aad ugu badan oo mar walba aan xataa barnaamijka baarista ee online-ka aan sameeyno sawirada aan baarista ku sameeyno aan aragno inta badan sawirro macdana raqiisana noo soo diro taas oo dadku qofka sababtay marka uu wax soo dirsanayo uu rabay inuu wixii iibu helo haddana waxyaalihii raqiiska dadka soo helay aan weli iibu helin taasina ay tahay caqabad jirta waxaan rabnaa caqabadaas inaan iska kaashano dadka Soomaaliyeed oo leh dawlad oo leh shacab oo leh culimo oo leh caaqilo oo leh ganacsato oo leh haween dhalinyaro waxgarad aqoonyahan cid kastaba leh oo midaysan in aan arrinkaas qorshaha hirgelino qorshaha waxaan ku hirgelin karnaa 3 qaab baan ku hirgelin karnaa saddexda qaab aan ku hirgelin karnaa qaab waxa weeye ganacsato dhaqaale haysata in ay la xiriiraan caalamka ay nala soo xiriiraan kadibna aanu adeegyada kheyraadka kambaniyada iibsada ee caalamka aanu u soo diyaarino xiriiradoodii ayagu ay kambaniyadii la xiriiraan kadibna kambanigi marka ayagu la xiriiraan xiriirkii ayagu soo fududeeyaan aanu fududeyno inay markaa kadib ayagu ay alaabihii iibsadaan alaabti marka ayagu iibsadaan ayagu markaas ay alaabtoodii dhoofsadaan iyaga oo yaqaana shirkadihii ay alaabta ka iibsan lahaayeen oo wax ka gadan lahaa iyaga laftirkooda iyo faa'iidadii ay faa'iidi lahaayeen qaabkaas waan ku shaqayn karnaa waliba cidii maaragtay ganacsadaha oo adeegyada macdanaha raqiiska iibsan karta oo Soomaaliyeed waxaan u soo bandhigayaa inaan shirkado badan oo caalami ah oo iibsada aan xiriiradooda online-ka ahaa u heli karo oo aan sidaas isugu xiri karo ayagu marka ay heshiisada la geli karaan kadibna alaabaha markay u geeyaan lacagtoodii ay ka soo qaadan doonaan dadkan ay gudaha joogana ay lacagta ay ayagu wax ku qaadayaan lacag ka jaban oo qiimo ayagu ay wax ka faa'iideeyaan ay wixii ku gataan dadkii wax ka gadan lahaa oo macdantii soo saari lahaana anigu aan ku xiri karayo ganacsatadaas qodobkaas waan hayaa aragtida labaad oo aan hayo oo aan fududeyn karayo waxay tahay
haddii la helo dad dhaqaale isku darsada oo sharing sameeya oo Soomaaliyeed waxaan qoranaynaa xeer waxaan samaysanaynaa nidaam waxaanu saxanaynaa heshiis waxaan marinaynaa sida maaragtay dowladda federaalka oo wasaaradaha ay qusayso sida wasaaradda ganacsiga iyo bangiga dhexe iyo oo aanu ka heli karno adeegii payment gateway-gii iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga oo shatiga ganacsiga aan ka heli karno iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta oo iyaduna shatiga qayb ka qaadan karta kadibna heshiis la isla yaqaano sharingka mashruucan dhaqaalaha lagu bilaabay la isla yaqaan inta qof oo shareholderska ka la isla yaqaan sidoo kalena la isla yaqaano inta maaragtay ummad waxaan wadaagtaa sidoo kale la isla yaqaano faa'iidada sida loo qaybsan doono la isla yaqaano khasaaraha sida loo qaybsan doono la isla yaqaano shaqada inta qof ee maamuli doonta la isla yaqaano waxyaalaha ay la iibin doono la isla yaqaano meelaha loo iibgeyn doono la isla yaqaano wixii xeerar ah oo intaa dheer oo mashruucu u baahan yahay ayadana waan dhisi karnaa waxaana ka soo bixi kara halkaas ayadana dhaqdhaqaaq dhaqaale oo dadka Soomaaliyeed boos weyn ugu fadhiya wax weynna u buuxiya ayaan halkaa ka soo saari karnaa waxaa intaa dheer oo ayadana aan heli karnaa in dadka maaragtay aanu samayno gurubyo dadka macdanaha raqiiska soo saara ayagu macdana tiro badan oo kiintaallo iyo taran iyo ay soo saaraan kadibna dadkaas oo dhan macdanaha hayaan ay marka dambe qof kasta macdantu hayo asagu uu gaari soo saaro meel macdanaha la isugu geeyo aanu samayno kadibna macdanta aanu dadka si compleet ah jimla ayadoo qof kasta inta uu haysto laga qoray inaan u dhoofino markii macdantaas la dhoofiyo wixii markaas la soo iibiyey markii iibkii soo dhaco qof kasta lacagtii wixiisu u noqdeen markaas wixii mushqaayada oo guddigii hawshan waday ay leeyihiin laga jaro wixii kale qof kasta intiisi loo diro baan ayadana samayn karnaa heerka heshiiskaasna waxaa geli kara ayadana dad baa geli kara shaqeeya iyo dad ganacsato ah oo ayaga maalgeliyo dhabarka ka taagan markaas heshiiskaasina wuxuu noqon karaa heshiis aan si official aan dowladda ugu tegin sababta dowladdu marka heshiiska soo bandhigayo waxa la soo bandhigayaa waxa la isla yaqaan oo ah anagu ganacsi baan u nahay intaas budget aan ku shaqaynaynaa intaas wadan baan wax u dhoofinaynaa intaas canshuura waan bixin karnaa laakiin mashruucan way isu keenkeen waxaa la yidhaahdaa mashruucan nin iyo dhagax naag iyo dhagax gabar iyo dhagax baa la yidhaahdaa mashruucaas marka asagana waa la dhisi karaa oo waa qof iyo dhagax weeye marka qof kastaba dhagaxiisa bay islaantan dhagaxda keensatay ninkan dhagaxiisu keensaday wiilkan dhagaxiisu keensaday qofkan waayeelkan dhagaxiisu keensaday sidaas asagana cadanta waa ku iibgeyn karnaa meesha aan joogo xoogaa dabayla baa ka dhacaysa haddii ay xoogaa culays ku tahay iska raalli ahaada waa mararka qaar way iska dhacdaa xilli waxaan ku jirnaa xagaaya anuguna meel waxaan codka kusoo duubayaa aan maanta xoogaa meel maaragtay badnaana oo koona ah baan kusoo duubayaa oo magaalada cilib geeskeeda ah marka dabayluhu way ka dhacaan nacwo iska jirtaa intaa haddii aan marka ka imaado aragtidiina waxaan rabaa inaad commentiga igula wadaagtaan sidoo kale waxaan rabaa qof kasta oo barnaamijkaan arkay barnaamijkaana waa barnaamij Soomaali oo dhan anfacaya
waxaan rabaa inuu sii sheer gareeyo oo gaarsiiyo bulshada dhan sidoo kale inta bar media ah oo kale oo bartaan ka baxsan haddii YouTube ahaan lahayd haddii Facebook ahaan lahayd haddii TikTok ahaan lahayd haddii Instagram haddii meel kale ahaan lahayd in la sii gaarsiiyo waxaan laygala soo xiriiri karaa telefonkan halkan saaran ama telefonadan qofku marka uu ila soo xiriirayo waxaan fududeyn doonaa lambarka guliska ah oo 090 leh lambarkaasi waxaan ku isticmaalaa WhatsApp lambarkan kale oo asaguna 066 kana waxaan ku isticmaalaa asagana sidoo kale WhatsApp lambarkan 061 ka ah oo asaga WhatsApp ma isticmaalo laakiin waa laygala soo xiriiri karaa marka call ahaan waa la soo wici karaa telefoon ahaan sidoo kale WhatsApp ahaan waa la soo wici karaa qofkan WhatsApp isticmaala Telegram isticmaala Telegramka wuxuu iga soo wici karaa lambarka 090 gale marka iimaha kaas waan ku isticmaalaa oo qofka iimada leh uu igala soo xiriiri karaa marka adigu alcamuum markaan warka isku soo celiyo waxaa muhiimadeenu tahay inaanu bulshada wax u qabanno caqabadana muddo hadeertaan 3 sano oo aan maalinta ka shaqaynayay dad tiro badan baan research u sameynay dadka tirada badan dhagaxda raqiiska ah ay maanu helin laakiin dad dhagax xoogaa qaaliya watay iiboo helay dhagaxda raqiiska ahina waa dhagaxda dhulkeena ku badan oo aad ugu badan hase yeelkee raqiisna aad ma ahan waxa laga yaabaa dhagax heli qof heli karay 100 kiilo dhagax oo kiiladii la siiyo $5 la siiyo oo 100 kiilo ku heli karay 2 maalin ama maalin ku heli karay ama 1 saac ku heli karay maalintii hal tan guri kara in hal tan oo dhagax oo kiiladii ay ahayd $5 $5,000 maalintii qof shaqayn karay ama ka badan shaqayn karay inuusan heli karin wixii in laga iibsado caqabada keenaysana waxa weeye de wixii waa wax u baahan in containero lagu raro waa wax u baahan in dawladda canshuur laga bixiyo waa wax u baahan in la budget gareeyo aniguna shakhsiyan de maalgelintaas hadda uma hayo dadkina waa dhibaysaa inay wixii qofkii dadaalay in dadaalkiisii uusan guuleysan sidoo kale dawladdii waxtar bay u ahaan lahayd oo de markii qofkii shakhsiga ahaa uu wax dhoofsado markabkii marka yimid oo dalka wax keenay oo faaruq garaaci lahaa hadduu wax qaado de waxay u ahaan lahayd asaga laftirkiisu ila qaalay u ahaan lahayd dekedii canshuur bay ka qaadan lahayd oo dawladdii canshuur bay ka heli oo ila qaalay u ahaan lahayd lacagtii feedback ayadu soo noqotay oo wadanka ku soo noqotay dhaqaalihii wadanka bay saameyn ku yeelan lahayd qofkii de ama uu guryo dhisan lahaa ama uu guursan lahaa ama beeru tabcan lahaa ama ganacsiyo furi lahaa oo baahi jirtay uu fududeyn lahaa sidaa la adiga shaqaalu qaadan lahaa shaqadii baa furfurmi lahayd canshuur damuu dib ka bixin lahaa dawladda ku soo celin lahaa dhaqdhaqaaq badan baa ka dhalan lahaa marka dhagaxaanina waa dhagax waa maado beeranta oo cimilo kasta roob ka soo daaya cimilo ka soo timaada iyo isbedel ka soo dhaca sida geedka u baxayo uu dhagaxu u baxaa oo beermaya oo waa waxaan dhamaanayn hadda wada aragteen intaasoo sanad Soomaaliya guriga la dhisayay dhagax baa la gurayay kaarkooyina haddana dhulkii uma dhagax beerin ciido waxaa la gurayay kaarkooyin iyo lowrada haddana dhulku uma ciida beerin haddana intaasoo godad iyo adeegyaal la qodayay haddana dhulku uma wada dalooshamin isbedel markaa intaasoo tan oo ciida baa mararka qaarkood meelaha laga raray intaasoo dhagax baa ajanabigu rartaan marar badan silsilad diyaarado lagu raraa kadibna maraakiibada guntada jooga loo geeyaa haddana dadku uma dhibaatoobin intaasoo sano baa kalluun la rarayay haddana dadku waxba sanad walbaba dee kalluun cusub baa yimaada وخيرات الصباح دشة مركا
dhulka waxaa jira togag baa hoostiisa mara caalamkao dhan baa isu furan waxaa dhacaysa markaa markii halkan ciidi ka dhimanaato caalamka ciida